ብልጽግና ውስጥ ኢንስቲትዩሽናል ኮራፕሽን የለም ፔሪድ ቢኖርማ ኖሮ ይሄ ሁሉ የምናየውን እንቅስቃሴ ማድረግ አንችልም ነበር። ሌብነት አለ? አዎ። ፒቲም ቢሆን መታረም አለበት? አዎ መታረም አለበት። ህዝብ ያስመራ ያስለቅሳል፣ አደገኛ ነገር ነው። ሌብነት ህዝብ የሚያስመርረው መታወቂያ ላውጣ abiy axmed cali hogaamiyaha dhalinyarada ah ee Itoobiya ayaa si shakhsi ah u soo bandhigaya duulaan adag cirbin dabagal dabargoyn iyo dagaal culus oo uu la galayo tuugada suudka iyo saxeexa ku dulsinaya kuna xadaya xoolaha shacabka Itoobiya ee masaakiinta ah. abiy waxa uu muujinayaa birlabnimo iyo hadayg xilli bilooyin uu laga joogo duulaankii laba jirsaday oo ku hayay TPLF. kolkan abiy waxa uu dhigay tootihii isagoo qaatay qalinka iyo mikrofonka cod dheerna ku naadinaya tuugada dhabarku muuqda ee mas'uuliyadda iyo xilalka ku aruursanaya hantida dalka iyo dadka ay mas'uuliyiinta u yihiin. madaxda tuuganimada lagu helo iyo kuwa lagu tuhmo ee iskugu jira madaxweynayaasha deegaanada, wasiirada federaalka iyo madaxda heerarka ah ee deegaanada oo uu ku jira deegaanka Soomaalidu ayuu abiy kolkan la galayaa weeraro dabargoyn ku sameynaya isagoo si joogto ah ugu dhawaaqaya in uu nidaamka dawladeed ka sifeynayo tuugada tayga xidhan ee xafiisyada fadhiya xukunkana haya. guud ahaan Itoobiya waa abiy oo kali ah hoggaanka ku dhiiranaya baacsiga qabqabashada iyo dabagalka mas'uuliyiinta u jooga boobka hantida iyo mas'uuliyadaha ay u gaajo iyo daranyo mudan yihiin 80 milyan oo shacabka Itoobiya ah. hadallada ugu dambeeyay uguna xasaasisan ee laga diiwaangeliyay abiy axmed waxaa ka mid ah inuu si cad ula dirirayo habdhaqan aad moodo inuu deegaanka Soomaalida looga sheegay oo ah in mas'uul kasta uu isagu yahay xafiiskiisa oo guuraya jirina wada tashi maamul guddi ku shaqayn iyo isla qorshayn mas'uul walbana hoosta uu ku haysto xukunka iyo khayraadka. abiy waxa uu ku caraatamayaa in ayna sinaba loogu dul qaadanaynin mas'uul isagu ah xafiiskiisa oo guuraya dhammaan hanaankaasi yahay mid aan ku soo banayn dawladnimada ay ku dhisan yihiin shacabka Itoobiya. abiy waxa hoosta ka xariiqay inayna xisbiga barwaaqo ku dhex jirin musuqmaasuq hay'adeed balse ay jirto tuuganimo iyo xatooyo dad ku kacaya. abiy oo xilligan fadhiya kursi ugu sarreeya Itoobiya ahna shakhsi ay ka goodo talada ugu dambaysa ee dalku waxa uu kolkan il dheer u yeelanayaa gaashaankana u daruuraya mas'uuliyiinta xukuumaddiisa waxaana in badan la sheegaa mas'uuliyiin iyo madax kala duwan oo ay tallaabooyinka abiy kula dagaalamaya xatooyadu ku yihiin cudur iyo cadaab calooshana horinayaan. madaxda Itoobiya qaarkood ayaa la dilaa hurdada oo ay u dhadhami laadahay cunnadu. mas'uulka lagu qabto ololahan baadhista musuqa ee abiy garwadeenka ka yahay ayaa mutaysanaya xilka xayoobin ceebayn iyo xabsi xukun adag daba yaallo. arrinta cajiibka ah waa in abiy marka uu ka hadlayo xatooyada ay madaxdu sameynayaan aad moodo inuu isagu dhex joogo shacabka sida uu xogaha u hayo hadallo badan oo abiy ku caraatamayo iyo cadeymaha uu burqanayo mararka qaar waxaad u qaadanaysaa inuu si toos ah ula hadlayo deegaanka Soomaalida. ololahan la dagaalanka mas'uuliyiinta tuugada ah ee uu abiy hal abuuray dabadana ka riixayo ayuu ku kasbaday malaayiin shacabka Itoobiya waxaana meesha ka baxay aragtiyo la qabay hadda ka hor oo ahaa inuu qayb ka yahay ama uu raali ka yahay wasaaruhu musuqa ay sameynayaan iyo baasiga hantida shacabka ay ku kacayaan qaarkood hogaaminta qaranka deegaanada iyo heerarka maamul ee dalku. si gaar ah go'aankan iyo tallaabooyinka abiy axmed ee doorkani waxay si weyn ugu heelin doonaan shacabka deegaanka Soomaalida waxayna soo afjari doonaan tuhumo iyo warar muddo jiitamayay oo sheegayay in ay jiraan miisaaniyado mashaariic iyo khayraad shacabka deegaanka Soomaalidu ay leeyihiin oo ku dhacay jeebab gaar ah intooda badan lagu urursanayay accountyo dibadda ah. waxayna taasi imanaysaa kolka ay guddiga baadhista musuqa ee deegaanka Soomaalidu birta ka aslaan maxkamada soo taagaan ku ceebeeyaan lana xisaabtamo mas'uuliyiinta lagu hayo dabagalka ee iyagu ah tuugada tayga iyo saxeexa ku maaruqinayay shacabka deegaanka Soomaalida.